gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliland oo soo gaaray gobolka Sool ayaa deeq isku jirta lacag iyo qalab u qaybiyay dadka naafada ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. qaar kamid ah dadka naafada deeqda la soo gaarsiiyay ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha gobolka Cabdikariin Xaaji aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii tixgelinta iyo qaabilaada uu nagu qaabilo markaan u baahano waa mahadsan yahay gudoomiyuhu daahir oo wiljeeradan wadayna isna waa u mahadnaqaynaa waxa leeyahay waa mahadsantahay qofkii qof naafac soo gaarsiiya dawxuun buu taray laakiin runtii gobolkani haddii aan ka warbixiyo naafadiisu aad iyo aad bay u dulman tahay u harsan tahay runtii markaan ka warramo gudoomiyaha gobolka yaga Cabdikariin waa madaxweynihii gobolka wixii maanta cabatina oo aanu qabno waxaan doonaynaa inaanu halka ka gudbino isagoo nooga wakiil ah xukuumaddii oo halkan isagu maanta wakiilkeedii ah gudoomiye halkan naafo badan baa ku nool gobolkan naafadaasi waxaa jirtay xilli aanu ilaa Taleex ilaa Urbogays ilaa iyo Woodwood ilaa iyo meesha la dharkeen aanu ka soo qornay 4800 naafo aanu ka soo qornay ilaa iyo xilligaasi wax dadkan soo gaadhay oo la taaban karo oo haba yaraatee wiljeerkaasi 10 xabba dhowr jeer baanu keenay laakiin baahida meesha taala aad iyo aad bay balaaran tahay naafaduna way kala daran tahay nin socon kara oo intuu gaari yar isagu soo riixda suuqiisa ku mara mid baralay soo gurigiisa jifaan cidba ka warqabin oo liita oo baqtiyay waliba xaasa oo danaysan ayay u qaybsan yihiin dadkaasi ilaahay uun baa og cid ogi ma jirto dadka naafada cid kasta wax soo gaarsiisa gudoomiyaha gobolka Sool oo si fiican uga hadlay iyo gudoomiyaha naafada iyo labada gudoomiye si wacan bay u hadleen runtii alaabta soo gaadhay oo ka mahadcelinayna naafada baahideedu inta kuma koobna way ka baahi ballaaran tahay mid waxbarasho rabtaa mid caafimaad mid kasta sida dadka kale baahi u leeyihiin runtii gabagabadii halka waxa ka hadlay gudoomiyaha ururka naafada iyo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Xaaji Diiri oo deeq biya gaarsiiyay dadka naafada bismillaahir rahmaanir rahiim maanta taariikhdu tahay 12 bishii afraad 2022 waxaan joogaa anigoo ah gudoomiyaha ururka naafada Jamhuuriyadda Soomaaliland magacayguna yahay Daahir Xaaji Diiri waxaan joogaa gobolka Sool oo aan soo gaarsiinay deeq aan ugu talagalay ururahan dadka naafada deeqdaas oo aan uga mahadcelinayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Xildiid madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirguddoonka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda gudoomiyaha koobaad Cabdirasaaq Khaliif Axmed Guuleed iyo gudoomiyaha ku-xigeenka labaad Saciid Mira Faarax iyo gudoomiyaha ku-xigeenka saddexaad Cali Xaamud Jibriil waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu haddaan ururkan nahay sabab u ahayd inaanu soo gaarno gobolada bariga inaanu itaalka iyaga soo gaarsiino naga iska kaaga garab taagtay waxaanu leenahay waxaan joognaa maanta gobolkii Laascaanood gobolka waxa joogta naafo aad fara badan dadka naafada waxay u baahan yihiin in loo gargaaro waxaynu ku jiraa bishii Ramadaan 10kii hore ayna dhaafay waa bishii qof kasta oo Ilaahay wax siiyay uu wax ka horeysin jiray wax la bixi jiray mid qurba jooga iyo mid qolqol joogaba iyo mid ganacsata mid tijaara mid Ilaahay wax siiyay waxaynu ku jiraa xilli abaareed oo aad aragto gudoomiyuhu soo wareegayo ee dadkii abaartu haysay ugu wareegaysanayo waxaan leenahay gobolka waxa taalo waayo badan oo aan la qarin karin haday tahay abaartii haday tahay biilaan haday tahay xaalad kasta oo lagu jira gobolku uu nugul yahay waxaana ka sii nugul oo ku dhex nool dadka naafada inkastoo oo gudoomiyuhu ka warhayo waxaanu leenahay oo ka codsanaynaa hay'adaha caalamiga kuwa islaamigaaba bishan Ramadaan 20 cisho haray dadka naafada waxay ku soomi lahaayeen qof quro caagad iibsan kara kuma jiro qof quro caagad iibsan kara kuma jiro qof quro 3 rufuc iibsan kara kuma jiro waxaanu codsanaynaa haddana ururka naafada Jamhuuriyadda Soomaaliland in dadka naafada gurmad bay baahan degdega mar labaadkan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha guddida naafada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo gaarsiiyay deeq aad iyo aad u qiimo badan taas oo aan marka hore uga mahadcelinayo cid kasta oo soo dhiibtay in Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro dadka naafada ah ee maanta waxa laga yaabaa aan haysanna waxaan leeyahay dee waxa la idin keenay ilaashada
oo waxaa la shalay mayduhayn maanta haysataan qofkii haystayna dee kaa labaadna wuu manaafacaadsanayaayo isbeer buu ka dhigan doonaa kii aan haysanina dee waa wax u soo kordhay sidaa wixii hadba u yimaada laydinku keenayaa wixii ka badanna diyaar laydinla yahay qof wixii la hayuunbaa dee laysi siinayaa waxba laydinka hagran maayo dalkeennana maanta waa ogtiin abaarta ka taagan markii hore iyadoo covid-19 taagnaa ayaa haddana abaartii inoo raacday mar saddexaad haddana waxaa inoo raacay iyadoo ganacsatadeennii aad ogtihiin suuqii u aheen ee caasimadda hargeysa dee xaaladii ku soo korodhay wax kastaaba waa qadarka alle waxaan qadarka alle xagga alle ka imani ma dhacaan waxaan odhan lahaa baryada ilaahay aynu badino oo si raxmaadkuna inoogu do'o dhibaataduna inooga yaraato aynu ilaahay barino haddaynu ilaahay barino oo mar kastaba gamcaha kor u taagno oo ilaah raxmaanka aynu barino oo salaatuleylka badino waxaan filayaa in ama ay tahayba in ilaahay wax badan oo inagu soo socday oo inagaga qabanayo marka alla ka cabsiga hala badiyo taasi waa ta ugu muhiimsan naafadana waxaan leeyahay sheekh mubaarak dhowr jeer baanu kulannay abaartii baa soo gashay iyadoo wixii la qaban lahaaba gobolka loo qaban lahaaba abaartii baa wax kastoo la qaban lahaaba iska keen hortaagtay raxmaadku markuu inoo do'o shir baynu isugu iman dhammaanteen wax allaala wixii aan idinla qaban karo iyo meel kastaan idiin garaaci karo iyo geed kastaan idiin isla kii taagi karo waa idinla samaynayaan axmed weytima bulsha t v laascaanood dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto blay store iyo abstore ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websayteka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeegga iidahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland